mudane muuse biixi cabdi waxa uu xafiiskiisa maanta ku qaabilay wafdi ka socota xisbiga ANC ee haya talada dalka Koonfur Afrika oo hogaaminaya Master Maqleeqa Examalu oo ah mas'uul sare oo ka tirsan xisbiga ANC waxa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland kulankani ku helinayay wasiirada arrimaha dibadda Professor Yaasiin Maxamuud Xiir Faraton arrimaha gudaha mudane Maxamed Kaahin Axmed horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shire iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudane Axmed Cabdi Xuseen Axmed Cabdi Dheere dhinaca wafdigan soo booqatay Somaliland ayaa iyagu waxay ka koobnaayeen mudane Master Abner Muzaze Master Alonse Ramasala iyo sidoo kale Master Alain Mugabi inkasta oo aan la xaqiijin waxa uu kulankani daaran yahay ayaa haddana uu kulankani noqonayaa kulankii labaad oo fuud ka socota Afrika ay soo booqanayso Somaliland wardi xasan daahir bulsho TV